بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iyadoo aan filayo in bahda saxaafaddu ay si fiican ii garanayso horta markii ugu horeysa bahda saxaafadda aad iyo aad baan u salaamayaa ummadda reer Soomaaliland ee nabadda jecel ee ku riyoonaysa inay horumarka gaadho inay ummadeedu shaqo hesho in dhalinyarada tahriibaysa loo helo meel ay ka shaqeeyaan iyo waxay ka shaqeystaanna aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan maanta igu kalifay inaan idin yeero ama aan war saxaafadeed bixiyo iyadoo muddo imika markay ugu yar tahay 3 sanadood haddaanay kaba badnayn aan la igu arag TV-yada iyo saxaafadda qaranka waxay tahay arrimo muddo fara badan isu soo biirsanayay oo runtii aan ku arkay xukuumadda waddanka Soomaaliland ka talisa waxa laga yaabaa in qof waliba dareen leeyahay dareenkiisana uu marna xishood ku daro marna dagaal ku dayo marna uu isiraahdo bal hadda sida kale wax ku sii karto ku sii badan baan isku dayay in aan bal hadda dareenkayga si waaqiciya oo salmiya oo dalka iyo dadkaba u turaysa inaan wax muujiyo laakiin waxa la moodaa in Axmed Maxamed Xamuud Siilaan iyo madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland in uu u doortay rag runtii aad moodo inay ku yihiin dabarjab ku yihiin qaran dumis ku yihiin horumar nacayb ku yihiin inaanay ummadda dan ka lahayn mar hadday iyagu dhargeen inuu taladii dalka u dhiibay Axmed Maxamed madaxweyne Siilaan ma oran karo nin maanta khibrad xumo hayso ama ma garanaysaay taariikhda aan dalkan garanayn waa nin waayaraga waa nin rugcadaaya waa nin siyaasiya laakiin ayaan darro waxay ka dhacday dadka ugu liitay baa kamida wasiiradiisa hoggaanka dalkan faraha ku haya dalkuna hadii iyo dadkuna haday hoggaan xumaystaan tala xumun baa u dambaysa waxaan aad iyo aad uga naxsanahay wasiirada qaarkood inay mararka qaar يعني سيابها أي واحد ليان أنا أموقنين إن أيهين مسؤول دولديد أو أمدًا مثلية. ولا غيابا وزير هذا قار كود دينا يخرج جراد بدن أو مقارنة ساي ما أنت دنينا يا ضلكن يا ضدكن إن أيهين لكن قار بدن هنتي وحل مودا إن دنت الشخص جا كسهر مريان تودا وزارة أي ليه أي هايستان أما وزير كي هنا أي وزارة يجوز كليهين وحدوني هالكلنا نحسه شقانون نمي شركات بان هاي جنعستها دلك الصوماليلاند بان سي حلاله oo liisan la uga ganacsanaa cashuur baan bixinaa shaqaalaan shaqaaleynay adduunka ninku wuxuu ku faanaa ama wuxuu ku yani ka hadlaa inuu tax payer yahay cashuur baan bixinaa shaqaalaan cashuur siinaa macaash baan bixinaa shilinkana soo galaanu ka bixinaa cashuur liisamaanu leenahay waan cashuuranaa sanad walba dalka dakhli baan soo gelinaa wasiir xafiis iska fadhiya oo wax laale iyo wuxuu og yahay aanu jirin ba intuu kaliya isqabto wuxuu kuleeyahay hantidan aad wado hadaanad aniga waxba la iga siinaynin ma baxayso halkan waxaan ku hayaa afar baabuur oo ay leedahay UN2 qarin mayno waxa weeye baabuurtani waa baabuur hadii ay ku roon yahay bullet proof ah baabuurta bullet proof ka waxa iskale hadii ay ku roon yahay UN xeer iyo shuruuc bay dawladda Soomaaliland la gashay hadii aynu inagu niraahno UN ma aqoonsanin de Soomaaliland ma aqoonsanayaan waxa laale iyo waxaynu ka rajaynaynaa ma jirto waa United Nations Organization kii ugu sareeyay madax meel la salaaxo ka sareysa ma jirtay waa the top organization adduunyada aynu doonaynay inaynu xiriir wanaagsan la yeelano si ay dalalka kale iyo adduunka kale xiriir inoo sameeyaan UN halkaas wax ka soo dejisataa caalamkana xiriir bay la leedahay wadamada de wadankan aqoonsanayna wadan jira maaha afartii baabuur cali waran cadde labana baabuurta qaarna waxay transit u ahaayeen garoowe qaarna hargeysa laga leeyahay waraaqahoodiina way cad yihiin customiskii wasaaradda maaliyadda oo hargeysa dekada berbera boardkeedii ciidankii trafficada intiiba way gawaarida way sii deysay because sharciyadoodii step by step loo dhameystiray baabuurtaasi albaabka markay mareysay
wasiir cali isagaa soo diray teleefon wuxuu yidhi baabuurtaasi igama bixi karto markaan anigu shakhsiyan la hadlayna afkayga kula hadlay wuxuu igu yidhi inama yaryar oo UN-ta u shaqeeyaana baabuur bullet proof bay wataan aniguna xaajiyad baan wataa ilaah baan idinku dhaashay markaasaa mas-uul dowladeeda waxaan leeyahay lagama waayin mas-uul daamakaa in ummadda hoggaanka loogu dhigo waa wasaaraddii arrimaha gudaha waa wasaaraddii dalka ay haysay sumcaddeeda iyo nidaamkeeda waxaan leeyahay madaxweyne siinay dee wasiirada noocaas markaad mas-uul nooga dhigto dabeetana inaan suuqa boodhar qaadano xaq baan u leenay inaan suuqa boodhar qaadano haddaanu idinka xishoonnay oo aanu dalka iyo dadka u tudhnay oo aanu nidhi dalka wax soo geliyo oo dhaqaale soo geliyo oo shaqaalayno inamadii yaryar tahriibayay xafiisyada ka shaqeeyaan oonu shaqo u abuurnay dee wasiirka intuu 5 gaari hargeysa ku dhex maro mid lixaad iiga soo daro weliba hay-adi leedahay annagu awooddaa ma lihin gaariga UN-ta annagu ma bixin karno baabuurtaa dekeddaanu kaga tegaynaa haddeer 4 baabuur waan isdhinac dhignay dekedda dib aanu kaga tagnay 4 maalmood baanu ka daba wareegaynay hadda baabuurtaas xuquuq baanu leenahay xaq bini'aadamnimo insaaniyad baanu leenahay ummaduna xaq bay leedahay dhibaatada dadka dekedda ka haysata ee maxaa la yidhaha isdaba ka wareega horena waxaan u malaynayaa baac mushtariga way uga hadleen iminkana waanu ka hadlaynaa waxa weeye container meel saaran baa waxa lagu leeyahay ilaa maareeyo amro lama soo dejinayo waxaagii baa ku jira lacagtahay waa lagaa qaaday xoolaha waad bixisay dekeddu kaa rabtay haddii cashuur lahayd cashuurtii waad bixisay waxaan leeyahay dalka nidaamkiisa waxa laga bedelo dadka ha loo turo ummadda ha loo turo akhaayir dhex gala saacadus qodobka uu adeegsaday inuu qawaadhidan soo bixiyo amarka waxaad malaynaysaa ilaa ay hadeerto wax sharciyadahoo uu noo sheegay cali ma jirto wax waraaqahoo annaga qolada dekeduna tustayna ma jirto waan maqalay in waqtiyada ka mida malaa laga wada hadlay baabuur dad private la yimaadaan ama isku dayeen inay la yimaadeen oo bullet proof dee sharcigaa waynu u wada hogaansamaynaa gaari bullet proof oo nin private uu wadan karaa ba ma ogolin mana ogolaan karno aniguna markaan ahay shirkad forwarding oo adduunyada wixii maxaa la yiraahdaa shipments ka soo forward gareynaya nin ogolaanaya mihi hadii ay shaqadaasi timaado in aniga aan wakiil ka noqdana shaqo aan qarinay ma horena hay'adaha nabadgelyada waan uga la shaqeeyay waanuna u report gareynay waxyaabaha aan suspicious ama dareenku naga galay marka cali haba yaraatee nama tusin wax sharciyada baabuurta waxa laga siiyo anigu sidaan u fahmay ilaa qofka bini'aadmiga calooshiisa kuma jirto hadalka siduu yiri anigu xaajiyad baan wataa buu yiri anaa nabadgelyada ilaaliya ninka loo baqaya waa aniga Axmedow maadaama aan aniga xaajiyad wato sidaba inama yareero UN-ta u shaqeeyaa baabuur beebe u eg buu yiri waliba kelmadaas u isticmaalay ay iyaguna u wadan karaan baabuurta midiga reeb waliba kuwa baabuurta u socota Garowe ayuu leeyahay UN-ta Garowe ma laha Puntland ma laha UN baa iskale